السلام عليكم أصحابتك كحرم بوجينان بوكانديق كلينيك كسر هذا مركلي برامجنا عافيماتك دوان waxaan la kulanay dad fara badan oo ka cabanaya calaamadaha hargabka maadaama xanuunka coronavirus oo magaalada soo galay waxa aan ka qaadanay suspect ah inay dhici karto dadka inay qabaan coronavirus saasalaaligeed sidoo kale waxaan sameeynay weydiimo ku saabsan bulshada inaan la wadaagno calaamadahaas isla markaana ka soo falceliyaan cid dareemaysa wax la mid ah ama isku aragtay calaamadaha hargabka iyo wax la mid ah kadib bogeena oo aan dhignay waxa ka soo falceliyo wax ka badan 100 qofood kuwaas oo dhammaan isla qiray inay wada dareemayaan calaamadaha hargabka oo ay la socdaan qandho قفع قللان iyo murqa xanuun fara badan ama kala goysida oo qofka xanuunaya halka dadka qaarna ay ku dareen inay waliba dareemayaan naqaska oo ku adag marka qaar ama neefsiga oo ku adkaanaya dhamaan ma dhihi karno marka dadkaas waxay wada qabaan coronavirus laakiin waxa wanaagsan lahayd in samples laga qaado oo shaybaarka la geeyo si marka loo kala ogaado inay coronavirus qabaan iyo inuu yahay hargabkii caadiga ahaa ama fayrasyadii kale ee hargabka keeni jiray sidaan wada ognahay coronavirus wuxuu la mid yahay fayrasyada kale hargabka sidoo kale keena laakiin wuxuu kaga duwan yahay in calaamado serious ah oo keeno oo qofka uu u dhiman karo haddii aan u soo noqono mowduuceenan waxaan uga hadli doonaa marka uu ku dhaco qofka coronavirus sababta dadka qaar ay ugu nugul yihiin isla markaana oo halis u gaarsiiyo ugu dambeynna dadka qaar ay u dhintaan sida caadiga ah coronavirus waxa u dhintaahi waa 3% qiyaastii inta badanna dadka 60% baan dhahno ma soo saaran calaamado aad u muuqda laakiin dadka qaar ayaa xaalad halis gala marka ugu horeysa qofku waxa ku qaadi karaa sidaan wada ognahaba dibcaha qofka qufacay ama hindhisay afkiisa ka soo baxa oo qofka kala gaara ama secretion ama dhacaan qofka ka yimid oo meel ku tiray isla markaana qofka kale oo si kama ah oo u taabto isla markaana jirkiisa qaybaha kale u gudba marka qofku wuxuu ka gali karaa ama fayraskaasi oo ka qaadi karaa afka sanka iyo sidoo kale indhaha waana sababta bahda caafimaadku ay u xirtaan indhaha marka ay la tacaalayaan cudurka ugu horeyn marka fayrasku marka qofka jirkiisa galo marka ugu horeysa wuxuu ku nagaadaa tubooyinka neef mareenka ee qaybaha sare ee sanbabada waqti kadibna waxa uu galaa gudaha hoose waana sababta marka ugu horeysa uu qofku uu qufacaba uu u soo saarayo fayrus fara badan oo dadka kale u qaadsiin karo kadib marka uu sanbabada gaaro qaybaha hoose waxa uu isla markiiba weerar ku qaadaa meelaha lagu magacaabo siliyada ama qaybaha dhaqaaqa sameeya ee sanbabada si hawadu ay u dhaqaaqdo iyo mukoska ama qoyaanka qaybta leh ee sanbabada si oo halkaas uu burburiyo marka kadib edema ama waxa imaan doonta qolqol fara badan qoyaan inuu soo galo waana marka qofka pneumonia ay ku dhacayso inta kadib waxa dhacaysa qofka in ay burburaan ama weerar ku qaado gas excess janjiga meesha uu ka dhaco oo ah sidaan wada ognahay dhiigga qaybaha hoose ee jirka laga soo celiyo oxygenka ayaa ku yar ama waxa ku badan wax lagu magacaabo carbon dioxide-ka dhinaca midig markii uu jirka looga soo celiyo kadib waxa la geeyaa sanbabadaas oo oxygen ku dara kadibna carbon dioxide ka saara marka waxa dhacaysa meeshii uga dari lahayd oxygenka dhiigga in fayraskani uu burburiyo kadibna ay dhici weyso in dhiigga oxygen lagu daro sidaas laadeed waxa dhacaysa qolqolkii dhiigga ee socday in jirka uu gaarsiin waayo oxygenka uu jirka u baahnaa sidoo kale marka waxa dhacaysa oxygenka ugu badan meelaha ugu loogu isticmaalka badan yahay waxa kamida kaliyaha beerka iyo sanbabada sidoo kale iyo maskaxda marka waxa dhacaysa in oxygenka ay u baahnaayeen kaliyaha kale ay waayaan sidaana ay ku timaado renal failure ama kaliyaha in shaqada joojiyaan sidoo kale beerka inuu shaqada joojiyo qaybaha kale ee jirka si tartiib ah in shaqada u joojiyaan markaas kadibna qofku uu u dhinto sidoo kale waxa dhacaysa dehydration qof ku dhaco ama fuuq bax oo qofka uu solutionkiisu yiraahdo waana sababta loo leeyahay qofku cabitaan fara badan ha sameeyo marka maadaama intaas oo xaalada uu qofku marayo waxa kaliya ee looga hortagi karo cudurkaani waa qofku inuu taxadiro qofka 2 mitir u jirsado wajiga uu xirto hatta uu kiyaalo u gashto hadii uu awoodo gacmihiisa oo mar walba uu dhaqo sidoo kalena laga taxadiro dadka waayeelada ah in macnaha aan la gaarsiin si walba oo looga hortagi karo in xanuunkaas ay qaadaan maadaama ay aad u nugul yihiin
khaasatan waliba dadka waayeelada waxa u sii nugul kuwa cudurrada la nool sida kuwa sonkorta qaba kuwa dhiig karka qaba dadka HIV-ga qaba iyo sidoo kale cudurrada immunity qofka difaaciisa hoos u dhigaya dhamaan dadka qaba ayaa halis ugu jira xanuunkan inay u geeriyoodaan marka maadaama uusan dawo lahayn qofku waa inuu taxadir dheeraad ah sameeyo وما سنتين